لتعليل لو آي أقاسم ونكسن سكول كقليف الله أهيبي أقوم تيقار لتعليل لو آي أقاسم ونكسن سكول كقليف الله أهيبي إسراح أسلوبتا أرديد أبوسا أمت وشقين تسكول كقليف الله أهيبي إسراح أسلوبتا أرديد أبوسا أمت وشقين تسكول كقليف الله أهيبي دروس إمدسيل انتي مدن راهادين halkayku ahaatay iskuulka qaliifdhe intii mudan raadin halkayku ahaatay iskuulka qaliifdhe daruus imdhisayil intii mudan raadin halkayku ahaatay iskuulka qaliifdhe intii mudan raadin halkayku ahaatay iskuulka qaliifdhe أستانت دبلوما ما دوين استأفسن إسرع سنقار حساب اسكو أهدن ومناسبة قلين جبين تاسو الله سمين آيو أردي قلين جبين يسو سنة دوكسيات كالله دكم إلى تنك حفلة دان وحاسو أغاسيمي مامولكا يا معلمين تأكاديمية دا خليف وحان الله وطلق علي إن قلين جبين إن للاقى بصدق فرحة ardayda qalin jabinaysa ee dhameystay maadooyinka caafimaadka iyo luqadda Ingiriiska waxba hadalkeenan idin ku dheereyn xafladan way inoo furan tahay qof walba oo ugu talagashay inay wax halkan ka soo jeediso way u furan tahay inay soo jeediso waxaan ka mid ahay ardayda ka qalin jabinaysa akademiyadan casriga ee iskuulka Khaliif waxaan idin sharxi doonaa lafaha bini'aadanka lafaadana guud ahaan waxay ka kooban yihiin 206 lafood lafaadima waxa loo qaybiyaa 4 nooc oo kala ah lafaha balbalaaran sida lafta ku taala garabka gadaashiisa lafaha dheer sida lafta dhudhunka oo kale lafaha gaagaaban sida phalanges fara oo kale lafaha qaab kale sida lafta laf dhabarta oo kale waxa kale loo qaybiyaa 4 qaybood oo kala ah lafaha adimada sare oo ka kooban 64 lafood lafaha madaxa oo ka kooban 22 lafood lafaha adimada hoose oo ka kooban 62 lafood waxaan aad uga faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo munaasabadan aadka u weyn ee lagu maamuusayo qalinjibiyaasha ardayda ka qalinjibisay akademiyada Khaliif Modern Teaching Academy oo ii sheeg in muddo aan ka soo shaqeynayay labadeeda branch ardayda maanta halkaani ku qalinjibinaysa ee soo baratay cilmiyada kala duwan dhankii caafimaadka saxaafadda luqadda Ingiriiska dhammaan waan u hambalyeynaa waxaan leeyahay hambalyo 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 murtidayda maqal macnaheeda garo murtidayda maqal macnaheeda garo maangaafka dhaaf maclimadaydu waa maskaxdii wacnayd maclimadaynu waa maskaxdii wacnayd macalniciimo waa maskaxdii wacnayd miraha tacliin malabka macaano meerise malabka macaano meerise maclimadaynu waa misal waalidkayn macalniciimo waa misal waalidkayn markastana ka dhowr muran iyo xumaan markastana ka dhowr muran iyo xumaan misna sii mudnaan maclimadaynu waa misal waalidkayn macalniciimo waa misal waalidkayn markastana ka dhowr muran iyo xumaan markastana ka dhowr muran iyo xumaan misna sii mudnaan
uma soo istaagin inaan wax badan ka dhaho laakiin ujeeddada aan u soo istaagay waxay ahayd keliya inaan dadkan ama ardaydan quruxda badan ee maanta maalintooda qurux badan soo gaaray inaan dhaho hambalyo 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 waxaad soo gaarteen maalin qurux badan oo aad wada sugayseen kulley waa aqoontu amba cilmigu markii la bilaabayo iyo markii la dhammaynayo isku mid ma ahanin dadaal badan iyo juhdi badan aad soo muujiseen amba aad soo gaarteen markii la bilaabayo waxaad moodaa in intaan laga badnaa laakiin markii la dhammaynayo intii hore laga sii yaryahay waxa la isdheerana waa juhdigaas iyo dadaalkaas la soo bixiyo weeyaan cilmigu amba aqoontu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha horumarka iyo tanaadka lagu gaaro waa markii la fiiriyo adduunka aan maanta joogno waddan ka mid ah horumarkiisa iyo wixiisa wax la fiiriyo waa cilmigiisa iyo dhalinyaradiisa qaabkay wax u barteen iyo waxay gaareen iyo meesha ay gaareen dadku kale ayaan roon ama kale aqoon dheer ama kale asluub weyn haddaan eed la doonayn ama deeq ilaahay asraar aan la daynayn adigaa naciimooy hormuudkii macallinimo galay dhaqankii abkaa iyo hidihii dhulkaagaad weli dhowrataayo marin hooyadaaba samo kuu dhammayso dhiisha kuu xambaartay titooraysa naciimay gunaanadka hadalkaygiiyo guuxaygu waxa weeye titooraysa naciimay rabbi guusha kuu hay awalan assalaamu calaykum dhammaan ardayda labada qeybood qalinjibiyaasha kasoo qaybgalaasha xafladda maamulkii macallimiinta akademiyadda khaliif waxaan idinku salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu uma soo istaagin halkaan inaan hadal badan ka soo jeediyo si qaas waxaan ugu mahadcelinayaa ama ugu hambaleynayaa labada qeybood qalinjibiyaasha waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo maamulaha iskuulka khaliif modern teaching academy ustaad maxamed ibraahim khaliif ustaad laki macallimiinta kale maamulka ardayda qalin jebinaysa marti sharafka waalidiinta iyo dhammaan ardayda kale ee iskuulka dhigata waxaan idinku salaamaa mar kale salaan islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadal badan iima furna keliya waxaan u soo istaagay gruubka maanta qalin jebinaya inaan dhaho hambalyo hambalyo waad guulaysateen dadaalkii iyo juhdigii aad bixiseen iyo waqtigii dheeraay aad ku soo bixiseen maadada ingiliishka iyo caafimaadka labadaba iyo saxaafadda inaad ku guulaysateen juhdidii laydinka rabayna aad ka mira dhaliseen mar kale waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan leeyahay hambalyo 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 ardayda qalinjibiyaasha ah ee maanta kalin bedelanaya dufcadii saddexaad ee khaliif modern teaching academy dufcadihii idinka horeeyay sidaan oo kale ayay kaga baxeen iskuulka intaa in lamida maanta idinka ayaa ka qalinjibinaya idinkoo muddo badan u soo dhabar adeegay waxaad baranaysaan muddo badan u soo dhafrayay muddo badanna waqti ku bixinaya waalidiintiinii ayagana idinkugu soo dhabar adeegay inaad soo baxdaan waqti aad ku bixisaan inaad iskuul soo aadaan taas kadib dhammaantiin oo isku duuban waxaa idin leeyahay hambalyo ma ahan markii ugu horeysay iskuulka khaliif arday ay ka baxaan waa markii saddexaad dhankiina ardayda markii ay wax baranayaan waxay ka qalinjibiyaan maadooyin badan ee haddaba isugu jirtiin maadooyinka aad ka qalinjibinaysaan wax kasta bilaaw ayay leeyihiin bilaawgoodii ayaad barateen yaana la dhihin maanta maadada aan bartay waa ka qalinjibiyey waxaa bilaabayaa inaan waxyaabo kale sii barto waa baran kartaa waxyaabo kale hase ahaatee maada ah waxay ku maraysaa meel basic ah wiilashan quruxda badan leh iyo gabdhaha ka daran maanta hortiina fadhiya ee qalin jebinaya waa dadkii iyo mirihii aan soo saarnay ama akadeemiyadu ay soo saartay maxaa yeelay maalinkii halkan imaanayeen ma ahayn tirada maanta ay yihiin ma ahayn quruxda maanta ay leeyihiin ma lahayn tayada iyo tirada quruxda badan leh maanta ay leeyihiin waxay markhaati u tahay in akadeemiyadu hiigsatay soo saartay wixii in badan ay ku taamaysay waxaan rabaa in halkan uga mahadceliyo macallimiintii u dhabar adeegay ardaydan da'da yar ah ubaxa maanta iyo berito ah hooyooyinkii beri iyo maanta ah aabbooyinkii maanta iyo berito alla ka sokow subxaanahu wa tacaalaa waxaa mahad iskale maamulka iyo macallimiinta labada qayb ee dhabarka u dhigtay
macallimiintoodii soo waxbaray anigoon kala reebaynin. waxaa mahadlay sidoo kale waalidkii ku soo tiiriya tacabeelay ee iyagoo xitaa tixsiga aan iska celin karin soo koriyey, qashinka aan kala garanayn iyo wanaagga iyo xumaan soo barbaariyey, iyo macallimiintii iyagana soo saaray maskaxda maanta ay ku fikirayaan. waalidku waxaa la dhahaa waa labo, abuljasad iyo abulruux. abuljasad waxaa la dhahaa hooyada adig ku dhashay iyo aabbaha adig ku dhalay. abulruuxna waxaa la dhahaa macallinkii iyo macallimaddii ruuxdaada soo waxbartay ama soo waxbaray. hooyadu ama aabbuhu wuu awoodi karaa nafaqadaada inuu raadiyo, laakiin iskuma dari karo inuu nafaqadaadana raadiyo, yacni biilkaagaan ula jeedaa waxaad cuni lahayde raadiyo waxna ku baro ma suurtagelayso. macallinkuna ruuxdaaduu koriyaa, wuxuu awood ilaahay u siiyey inuu dareemaayo, fahmaayo baahidaada adiga aad leedahay. dadka waa 4 nooc. dadka maanta aad arkaysaan 4 noocay isugu jiraan. midi waxaa la yidhaahdaa kabane kaban. midka koowaad waxaa la yidhaahdaa kabane kaban. midka labaad waxaa la yidhaahdaa kabane jaban. midka saddexaad waxaa la yidhaahdaa jabane kaban. midka afraadna waxaa la yidhaahdaa jabane jaban. bal aan micnayna marka kabane kaban maxaa la dhahaa? kabane kaban waxaa la dhahaa arday ilaahay 6diisa 6aad taam uga dhigay, alxamdu lilaah, maskax siiyey oo ku fikiro, haddana ilaahay ugu daray cilmiga ilaahay ugu daray. waa kaas maxaa waaye kabane oo haddana kaban. 6da 6aad ilaahay taam uga dhigay, caafimaad uu leeyahay, waxaana u raacsiisan cilmiyuu bartay, soo maahan? sida macallimiintiina maanta aad ka arkaysaan cilmiga ilaahay siiyey, alxamdu lilaah, idinkana aad biri insha allahu tacaala noqon doontaan booskooda. waxaa ku xigo kabane oo jaban. 6da 6aad ilaahay taamuu uga dhigay, laakiin cilmigii la bara lahay ma uusan baranin ee uu ka tagay. ninkaas maxaa ka maqan? qayb soo maahan? qaybaa ka maqan. waxaa jiro wax loo yaqaana jabane oo kaban. 6da 6aad ma lahan, qayb baa dhiman. il, san, dheg, gacan iyo wixii la midka aad taqaanaan. haddana alxamdu lilaah, ninkaas markaa fiiris waa jabane, haddana waa kaban yahoo cilmiya ilaahay baray. dad ma aragtay masraxa iyo meelaha markaan joogjoogno qaarkood aan xataa awoodin laga yaabo in adoo kale waxa aad leedahay aysan lahayn, haddana cilmi kaa badiya. waxyaabaha iga cajab geliya waxaa ka mid ahaa, wallaahi kaftan ma aha, galaasaan isla fadhinay, waxbaan isla baranaynay, aragga ma lahan ninkaas. aragga dhan indhihiisa ma lahan, ardayaan isla ahayn, aragga indhihiisa ma lahan, fasalka waa la soo hogaamiyaa, waa la sii hogaamiyaa. wallaahi kaftan ma aha, cilmiga waa naga badnaa xaqiiqatan. kaalmaha ugu horreysoo geli jiray waa dadka aan ku daysan jiray ama aan ka maseeri jiray in ay hormuud yihiin. maxaa yeelay ilaahay aragyoo tiray, haddana cilmiga ma uusan ka quusanin. maanta waxaa jira rag ama dumar ama gabdho ilaahay 6da 6aad taam uga dhigay ee guryaha iska jijiifa. hooyadood hanti ilaahay siiyey, aabbahood hanti ilaahay siiyey, bal ay ka doorbiday inay Facebook iyo WhatsApp iyo Snapchat iyo Instagram iyo TikTok iyo balaayo isticmaasho. way buuxaan maanta. aan dhammaystireen kaa kala gooynin kii ugu dambeeyey waa jabane jaban. kaas waxba ma ahanba eber.